Tani waa sheekada nin xoogsade oo shaqaale ah oo magaalo yimid isaga iyo qoyskiisa oo dhan si uu u raadsado shaqo uu lacag ka heli karo. Qoyskiisa oo dhan maalintoodii waxay ku qaadan jireen shaqo aad u adag. Shaqadiisa aad ayay u badnayd, wuxuuna ka mid ahaa dadka ay ahayd inay maalin walba shaqaystaan si ay lacag u helaan. Wuu awoodi kari waayay inuu cuno helo ilaa uu ka baxo guriga uuna u aado jidadka si uu ugu shaqaysto shaqada xamaalinimada ah. Waxay cuntada heli jireen iyagoo wajahaya halgan badan maalin kasta. Kadib shaqadii cuslayd ee maalintii, waxa uu ku seexday guri lagu sameeyay wadada. Maalintii markii uu shaqadiisa u socday ayaa waxa uu arkay in wadadu cidlo tahay, gawaarina aysan wadada oolin, sidoo kale inaysan jirin qof socda wadada, aynu wadada ahayd mid cidlo ah. Kadib markii uu waxyar sii socday ayaa Billy si lama filaan ah loogu dhuftay dhabarka. Billy wuu argagaxay, isla markaana si dhaqso leh ayuu u soo jeestay, wuxuuna arkay in nin boolis ah ul ku garaacayo. Billy ayaa yiri ninka booliska ah, mudane fadlan isug, maxaad ii garaacaysaa? Ninkii booliska ahaa ayaa yiri, miyaad waalan tahay saaxiib? Halkan miyaad ka soo luntay oo miyaadan ogeyn in bandow lagu jiro? Booliskii oo hadalkii sii wada ayaa yiri, ummadda oo dhan ayaa bandow ku jirta, ee haddaan mar kale halkan kugu arko si xun baan kuu garaacayaa. Billy ayaa yiri ninkii booliska ahaa, mudane waa maxay bandowgan? Maxaana loo xidhay meel waliba? Booliskii ayaa yiri, oo miyaad waalan tahay? Adduunkay ku nooshahay waxaa jira cudur safmar ah oo lagu magacaabo coronavirus kaasoo ku sii faafaya meel waliba. Ninkii booliska oo hadalkii sii wada ayaa yiri, haddii aadan tagin oo gurigaaga aadan aadin, waxaa kugu dhici kara cudurkan, waadna geeriyoon doontaa. Ee orod oo tag meesha aad ka soo luntay, oo Ilaah baa og dadka nuucan ah ee waalida ah meesha ay ka yimaadaan. Isagoo booliska sidaas leeyahay ayuu haddana ul dhabar kaga dhuftay Billy oo naxsan ayaa orday, wuxuuna tagay gurigiisa. Markaa kadib familkiisa ayaa weydiiyeen sababta uu u soo noqday. Waxa uuna ugu jawaabay, waxaa jira cudur safmar dilaa ah oo lagu magacaabo coronavirus oo weliba sii faafa, sidaa awgeed magaalada oo idil waa bandow, mana aadi karno wadooyinka. Billy wiilkiisa ayaa yiri, laakiin aabbo, haddii aanan meelna tagin, aanan soo iibin wax cunto ah, sideen ku heli karnaa cunto? Billy ayaa yiri wiilkiisa, wiilkaygiyo, ma jiro qof jidadka jooga oo aan wax ka iibin karo, maxaa yeelay meel waliba waa la xidhay, dadkana guryahoodii bay ku jiraan, xitaa haddii aad banaanka baxdana boolis ayaa ku garaacaya. Billy xaaskiisa ayaa tiri, haddii ay arrintan sii socoto waxaan u dhiman doonaa gaajo. Billy ayaa ka walwalay waxa uu hadda samayn lahaa. 2 maalmood ayaa laga soo gudbay, qoyskiisana si xun ayay ula ildaran yihiin gaajo. Caruurtiisa ayaa waxay bilaabeen inay ooyaan gaajo darteed. Billy waa uu adkaysan waayay murugada qoyskiisa, laakiin isagu wuxuu ahaa mid xamaali ah, waxaana hakad galay shaqadiisa maadaama uu waddanka ka jiro cudur, meel walibana ay xidhan tahay. xitaa ma uusan haysan Billy lacag lagu iibsado raashin. 2 bari ay guriga joogeen, familkiisa 2 maalmood ma aysan cunin wax cunto ah. Billy ayaa banaanka u soo baxay, xitaa markii uu banaanka u soo baxayay wuu arki waayay cid shaqo siisa, maxaa yeelay meel waliba way xirneed oo bandow ayaa lagu jiray. Billy ayaa ku dhiiraday inuu banaanka u soo baxo, xitaa kadib markii ay garaaceen booliska. Billy ayaa waxa uu ogaaday in dowladda Ruushka u qaybinayso dadka saboolka ah raashin. Billy ayaa halkaas aaday, wuxuuna ku ogaaday in kuwa kaliya ee haysta kaarka Ruushka la siinayo raashin. Sidaa awgeed Billy wuxuu ahaa nin danyar ah oo ma haysan kaar Ruushiyaan ah ama kaar aadhar ah. Billy ayaa halkaas ka niyad jabay, waa uuna ka soo noqday, waxa uuna imaaday meel kale, waxa uuna ogaaday in cunto loo qaybinayo qaar ka mid ah dadka saboolka ah oo dugsiyada dowladda wax ka barta. Billy markii uu halkaa u tegay ayaa waxa uu arkay qaar ka mid ah dadkii oo saf ku jira, iyaga oo wataan sanduuqyo iyo boorsooyin si ay raashinka ugu qaataan. Billy ayaa sidoo kale gadaal istaagay, wuxuuna galay safka raashinka laga qaybinayay. Safka aad buu u dheeraa oo waxay ku qaadatay 5 ilaa 6 saacadood inuu helo markiisa, waana 9 galabnimo. wuxuuna taagan yahay safka isagoo boran oo kaba kulul wata, waxa uuna ku rajaweynaa inuu helo xoogaa cunto ah si uu ugu geeyo caruurtiisa gaajaysan. safka waxaa ku jiray dadweyne aad u fara badan. Billy nasiib xumo waxa uu ku jiray safka u dambeeya, sidaa awgeed markii toogtiisa la soo gaaray raashinkii ayaa dhammaaday. Billy qalbigiisa ayaa hoos u degay isagoo murugaysan, wuxuuna rabay inuu ku noqdo qoyskiisa maadaama uu 2 jeer waayay raashinkii, maxaa yeelay calaf ayaa la cunaa.
isagoo mar labaad wadada maraya ayaa waxaa qabtay ninkii booliska ahaa ayaa yidhi nin waala miyaad tahay oo miyaadan fahmi karin digniinta koowaad ee aan anigu ku siiyey maxaad u maraysaa waddooyinka Billy ayaa yidhi mudane waxaad samaysaa hal shay wayna fiican tahay inaad i disho mudane maxaa yeelay qoyskaygu waxay gaajoonayaan labadii maalmood ee la soo dhaafay carruurtayda waa ay oonayaan gaajo darteed iska dhaaf cunto la cunayo xitaa ma haysano biyaan cabno safmarkan coronavirus mana dili doonaa ama waan ka badbaadi doonaa taas ani ma aqaan laakiin gaajada ayaa hubaal ah inayna dili doonto haddii aan weyno cunto aan cunno Billy ayaa yidhi ma arki karo familkayga oo uu dhimanaya gaajo sidaa darteed waxaa ka wanaagsan midaas inaad adiga i disho mudane Billy ayaa bilaabay inuu ooyo weliba si cod dheer leh ninkii booliska ahaa ayaa dareemay dhibka haysta Billy isla markaana waxa uu siiyey raashin iyo waxyaabo kale Billy ayaa u geeyay raashinkii qoyskiisa